الله يا الله الله يا الله. waxa muhiima waalidku aabuhu markuu doonayo salaada inuu tago fiirsada xaawalayday marka uu doonayo inuu salaada tukado la adaamo ku baraarujiyo waxa tiraahdaa adigu dumarka liiska dumarka kuma jirtida ragaad ku jirtaaye orod jamacata kebelow jamacata isagana waxa laga doonayaa inuu caruurtii iyo wiilashii soo kiciyo wiilasha waliba kuwii roorroora inuu soo kiciyo oo uu tababaro oo uu jamaca bara si ay aanay aroorta u jarin markay qaan gaadhaan warkacu maca raakiciin baa ilaahay la soo tukada dadka tukanaya rukuucaya la rukuuca jamcu waajib ku yahay ragga dad badan maanta guryaha iskaga tukadaan meheradaha ay ku tukadaan laakiin rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu tamaniyay inuu soo gubi lahaa gurigooda uu ku soo gubi lahaa taasuu tamaniyay marka arintaana aad baynu baraarujin lahayn masjid ku yaala Saudi Arabia magaalada Riyadh ayaa jamciisi yaraaday qisa dhacda weeye kadibna imaamka haba hadlay oo wuxuu yiri xaaska u soo kicin weyda ninkeeda jamca Allah waxaanu ballan qaadi doonaa inaanu ka bixino dhaqaalihii uu tulabaad ku guursan lahaa dhaqaalihii xaas labaad uu ku guursan lahaa baanu bixin doonaa masaajidkiiba maalmo kadib waa camiray marka dumarkaasi de ilaahay kama baqin tulabaad oo laga daba keeno ayay ka baqdeen baynu oran karnaa laakiin waxa qofka muuminka u muhiimsan inuu ilaahay ka baqdo subhanahu wa ta'ala waay oo iyaduna ay u aragto waajibka ninkeeda saaran oo gutaa in uu isaga qiimo u yahay iyadana qiimo u yahay qoyskana qiimo u yahay